بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام سيدنا محمد maanta waxaan joognaa xaafadda Shakopee Minnesota gobolka Minnesota waxaan bilownay markii ugu horeysay community-ga Soomaaliyeed ee degan xaafaddan Shakopee inaan ka qaybino raashinka qalalan noocyadiisa kala duwan sababaha nagu kalifay inaan community-ga caawino waxa weeyaan maadaama lagu jiro xilligii pandemic-ga ama COVID-19 waxa jira dhibaatooyin fara badan oo familka soo gaaray haddii tahay xagga dhaqaalaha haddii tahay xagga shaqooyinka iyo waxa jira dad badan oo waalidiin oo waaweyn oo waayeel ah dadkaasoo marka aan tagi karin goobaha laga soo adeegto ama raashinka iyagoo ka cabsi qaba in xanuunka u nugul COVID-19 marka waxaan xil qaanay community ahaan ka xaafadda Shakopee inaan community-ga aan caawino raashinkan waa raashin loogu talagalay community-ga xaafadda dadka degan ee Soomaaliyeed ayo dhammaan cid kastoo community-ga Shakopee ku nool runtii Shakopee waa magaalo aad iyo aad u weyn waxaana ku nool in ka badan 12,000 oo Soomaaliya laakiin hadda faceka koobaad waxaan ku bilownay ilaa 500 inaan qaybino waxaan addressku waxa weeyaan 1240 3rd Street East Shakopee ama maqaayadda Roxon Cafe Shop parking-keedaan ugu talagalnay inaan ku qaybino runtii waxaan uga mahadcelinayaa dhalinyarada community-ga xaafadda ku nool isxaqaankii ay sameeyeen caawintii ay sameeyeen iyo dadkii ay raashinka xaafadaha ugu geeyeen door to door inay guryaha xaafadaha ugu geeyaan insha Allah raashinkan wuxuu noqon doonaa talaado kasta muddo 6 bilood oo soo socota hadii la yiraahdo inta sanadka lagu jiro 2021ka 6 bilood waxaan ugu talagalnay inta la helayo talaalada iyo COVID-19ka nolosha ay ku soo noqonayso sidii caadiga ahayd inay dadka xaafaduhu ay helaan adeegaas talaado kastana waxay ka qaadan doonaan rugsan parking-keeda ay ka qaadan doonaan hadii la yiraahdo cuntooyinkan waxay iskugu jiraan qaybaha raashinka qalalan khudaarta fruitka cabitaanada waxyaabaha protein-ka leh sida ukunta iyo caanaha iyo waxyaabahaas oo dhan marka runtii waa full grocery family waa run waxa loogu talagalay ma aha kaliya dadka familida ah hadduu xitaa qofku yahay single hadduu yahay family iyo cid kastaba oo community-ga Shakopee ka tirsanba waan ugu talagalnay inaan raashinka qaybino insha Allah taala waana sii wadi doonaa inaan ka qayb qaadano community-ga caawinteeda ka sokow raashinka qaybinaysa markii ugu horeysay mise hadda qobar qaybsay maya raashinkan waa markii koobaad oo ka qaybinayno Shakopee laakiin meelo fara badan oo kala laga qaybiyay sida state-da goboladeena kale sida St. Cloud Faribault Rochester meelooyin kale fara badan laakiin Shakopee community ahaan waa markii koobaad oo isku xilqaano inaan xaafadda community aan ka qayb qaadano aan hawshan sameeyno inta ku jirteen hawshan qaybinta raashinkan nool waxa wada la ما والله community guud waa dad fiican umada waxa ku hadlayna waa Soomaali dadku waa la hadla shaqeynana waa Soomaali marka qof kasto markii loo geeyo guriga loo geeyo duca iyo mooyaane wax kale oo caqabada ma jiraan caqabada ugu badan hadii laga tagi waayo waxa weeye iyadoo lagu jiro xilligii corona qofkii inuu afka iska xidho inuu gloves xidho iyo barafkii iyo haddana qabowgii iyo minus lagu jiro marka runtii waa hawl adag oo aad iyo aad u dhib badan laakiin waan ku faraxsanahay inaan shaqadan qabano dhalinyarada Shakopee community-gana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hawsha ay qabteen qofka aad siinaysan raashinkan aad ugu talgashay ku caawisan bulshada ku nool magaalada Shakopee maxaa ku xiraysan oo meelaha shuruuda runtii shuruuddu waxa waaye qofka in 6 feet social distancing la sameeyo in 6 feet la kala fogaado inuu qofku yahay qof of mask iyo afka u xiran yahay inuu yahay qofku qof aan xanuunka qabin oo quarantine-ka uu ku jirin hadduu quarantine-ka ku jiro yani albaabka loo hordhigayaa marka shuruudo kala toona ma jiro qofku muhiimad waxa weeye inuu Shakopee degan yahay iyo cid kasta oo caawimaad u baahanba inaan caawino marka wax dhib oo kale oo shuruudo kale ku xiran ma jiro qof kaste oo u qalmi karo oo eligible ama dadka familiyada ay caruurta haysta ha noqdaan ama cid kasta oo eligible xaq bay u leeyihiin inay qaataan marka wax shuruudo ma leh qof kasta u baahan anytime wuu iman karaa wuuna qaadan karaa ugu dambeyntii ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Shakopee maxaa leedahay runtii waxaan leeyahay waxaan ku jirnaa xaalad aad iyo aad u adag xilli adag baan ku jirnaa waa COVID-19kii runtii caqabado badan baa jira dad badan baa caawimad u baahan haday tahay dadka waayeelada haday tahay ciyaalka marka runtii in la iscaawiyo oo la isku danqado oo la iscaawiyo waxaan rabaa inaan fariin u diro community-ga Shakopee inay boardka iska jafaan
runtii dhibaato waxay ka haysataa xagga ciyaalka dhalinyarada waxbarashada oo runtii xilligan covid-19 maadaama lagu jiro ciyaalka u baahan yihiin in la caawiyo waalidiintiina ay yihiin dad aan haysanin khibraddii waxbarashada iyo ilmahoodii aan caawin karaynin marka in la isku duubnaado oo la is caawiyo ayaan u soo jeedinayaa community-ga gaar ahaan dhalinyarada Shakabi degan